waxaan leeyahay dadka Soomaalida oo banaanka joogo dhowrta sharafkiina Soomaalinimada ah una shaqeeya dalkiina meel kastoo aad joogtaan. waxa aynu dhammaanba halkan ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedkii Maxamed Siyaad Barre xilligii uu ku soo biiray ciidanka waxaana idin soo jeedin doona aniga oo Libaax Barqiya ah. madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo yaraantiisii ahaa wiil yar oo reer baadiye ah ayaa markii ugu horeysay wuxuu yimid degmada Dhuusamareeb wuxuuna uga sii gudbay magaalada Beledweyne wuxuuna nasiib wanaag la kulmay askar halka lagu qoraayay xilliga waxaanu ka mid noqday ciidamadii dibooga galay 1936 xerada tababarka ee Beledweyne. Maxamed Siyaad Barre markii tababarkii uu u dhamaaday waxaa loo soo bedelay magaalada Muqdisho waxaana la keenay si uu tababar dheeri ah oo ciidanimo uga sii qaato xeradii ciidamada ee ku taalay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka tagay ciidamada 1939 kadib markii loo soo sheegay geeridii laba adeeradiisa oo kala ahaa Jaamac Barre iyo Maxamed Barre wuxuuna aaday deegaanka Uulasan ee ka tirsan degmada Dhuusamareeb oo cidiisu ay deganayd. Maxamed Siyaad Barre miyiga ayuu degay wuxuuna ku guursaday xaaskiisii ugu horeysay oo lagu magacaabi jiray Faadimo Aw Muuse sanadkii 1941 markaas oo uu Ingiriisku kala wareegay awoodii dalka Soomaaliya taliskii Talyaaniga oo dagaalkii adduunweynaha ee labaad looga adkaaday. Maxamed Siyaad Barre haddaba isla sanadkaas waxa uu ku soo biiray ciidamadii Ingiriiska wuxuuna dalacaadii ugu horeysay oo ahayd alifle helay sanadkii 1941 aliflihii labaadna wuxuu qaatay sanadkii 1944 waxaana waxbarasho loogu diray magaalada Nairobi dugsiga la yiraahdo Guinea School waxaana tababarkaas kadib uu noqday kormeerihii koowaad 1950 markii Talyaaniga dalka uu ku soo noqday. Maxamed Siyaad Barre oo 3 xarigle ah waxaa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadkii 1952 la socda qaybaha kale ee aan soo gelin doona hadii eeba idmo insha Allah.